waxa kale oo maadaama aynu nabadda ka wada shaqeynayna iyana inoo socdo idinku bishaareynaya caasimadda Hargeysa dhammaan iskooysada ay leedahay dhamaantood waxaynu ku xidhaynaa kamarad waanaynu bilownaa inta suuqa bartankiisa muhiimka dhammaan waynu gelinay imika sidii aynu xoojin lahayn isku xidhka bulshada iyo booliiska isku xidhka bulshada iyo booliiska sidii aynu xoojin lahayn ee aynu noqon lahayn one team xogta dadku xogta helayaan booliiskuna xoogiibu hayaa iskaashigu markuu yimaado labada markaynu isla gaashanaba ayaynu guuleysanayn mootada waxaad arkaysaa waa habeenada ama maalmada markay duhurka too kale way yimaadaan mootooyinka xaafadaha ma laha lambar xataa hadduu kaa cararo waxa laga yaabaa gaariga inaad lambarka sawirka ka gaadhsiisid ood markiiba lambarka sawirka asiroote laakiin mootadani kuma xidhna wax la yidhaahdo lambar islaamta ilmaheedii ka baqanaysa toorre u haysaba ciidanka u imanaysa askaraa la diraya qaba baa la leeyahay mindidaa adigu qaba oo ku dhac tuug iyo haamaamka habeenkii gudaya masya abeesada socota waxaan ula tagnaa cabsida dadweynaha haddaan aanu ka baqano waa booliis waxaan u sheegnaa taliya ciidanka booliiska maanta isugu keenyay kulli isaga warrami doona ujeedada u weyn haddaan hordhac ilaahdo waxa weeye taliyayaasha qaybaha iyo taliyayaasha saldhigyada iyo gudiyadiinan ama gaararka idinkaa kulmi jiray qolo waliba halkeeda isku arki jirtay oo wada shaqeyn baa inaga wada dhaxaysa waa kulmi jirteen laakiin maanta wuxuu jeclaystay taliyaha ciidanku intay wada kulmi jirtay walba wada shaqeyn jirtay madaxdoodu ka mid yahay inuu arko oo halkan la sii ballamo la iswaraysto waaba kooban tahay la sii arko la iswaraysto wada shaqeyntana aynu iswacyi gelino isogaanshaha iyo wada shaqeynta annaga waxaana laga rabaa intaanu la iman karo xidhiidhka booliiska iyo dadweynaha inaanu adkayno wada shaqeynta adkayno wax community policing la yaadaa jira qaybta dhinac ayaga aanu ka toosino wixii aqoon aanu ku biirin karnay sida loola dagaalamo dambiyada ama ka hortagga ama la dagaalanka iyo socodsiinta shuruucda aanu gaadhsiino gudiyadaanu wada shaqeynayno iyo gaararka wixii iyagu nooga baahdaan aanu fulino la ballamo nin baa maalin wuxuu lahaa booliisku haddii wax loo soo sheegi lahaa dadka waa kashiftaan kashifi mayno ciddii war muhiima loo sheegta waa wada maqlaysaa caawa rag iyo dumar gudiyadiina gaararkiina waxa la soo sheegaya ama dembiga la soo sheegayo waa mar waa ka hortag marna waa qabasho oo waa ka daba tag ka xasaasiga booliiska dhaqankiisaba maaha shuruucdana way ku jirtaa inaan qofka la kashifin marka aan loo baahnayn in magaciisa la sheego marka loo baahan yahayna dee waa la sheegaya taa inaa idinla ogaataan dadka aad la shaqaysaan iyo dadkiinana ku wargelisaan baanu jecel lahay hadalka ku dheeraan maayo muhiimaddu waa intaa taliyaalkan waxaa kuu fadhiya 9 degmo gudiyadoodii community police la shaqeynayay gaararkii caasimadda gudoomiyaashoodii iyo ku-xigeenadiiba waxaan soo ajiibnay oo ku nimi shirkii aad noogu yeedhay annagoo diyaar bileeska inaan mar walba la shaqeyno lana garab taagan hiil iyo hooba haday noqoto wixii information la wadaagayo ee noqoto sugidda amniga caasimadda 9 degmo waa mas'uuliyadna saaran oo cid kasta doonayna inaanu ka badsano hadii Allah awoodda la aqbalo adayna taliyaan kuugu mahadnaqana dadaalka badan ee aad gelijuudiga aad gelisay ciidanka booliiska intii muddadii aad timi haday noqoto dhismayaal haday noqoto capacity-ga ciidanka haday noqoto tayada ciidanka aad baan kuugu mahadnaqanaa halka waxaanu shaqooyinka aanu qabanno nimankan dhalin iskuma cusbinin ciidanka booliiska saraakiishooda iskuma cusbin muddo badan baan soo wada shaqeynanay nimankan aniga waaba iga sii badan yihiin intaan uu joogay 4 sano iyo saayid baheedaan agaasimaha waxda amniga ahaa nimanka qaar baa dhowr ilaa 10 sanadood joogay qolada gudoomiyaasha nabadgelyada degmooyinka waana niman ku firfircoon shaqadooda ay qabanayaan waa shaqeynanaa waa soo dhaweynanaa shirarkan oo kale waxaanu rajeynaynaa in la joogteeyo oo la isku xidhnaado waxa jira marka kan heer caasimadeed adigu aad gudoominaysa u yeedhay laga yimaado waxa jira mid khamiis walba dhaca oo taliyayaasha saldhigyadu ka soo qayb galaan waxa jira mid kale oo xarunta ka dhaca dawladda hoose Hargeysa oo ka soo qayb galaan qaybuhu waxa jira mid qaybaha laftooda ka dhaca oo ka soo qayb galaan ilaa heer maayar ku-xigeen ama heer xogeeye iyo mas'uuliyiinta xarunta dhexe dawladda hoose aad baan kuugu mahadnaqanaa kulankeenana wuxuu daaran yahay in adkeynta amniga ujeedadeena waxa weeyaan inaynu fahanno laba arrin koow askarigu ama sarkaal ha ahaado ama askari ha ahaado inta uu dareeskaas uu shaqada qaranka hayo dadweynaha leh dadka leh iyagu shaqeynaya qof kasta oo wax yar dareemo oo amni darro ah ama ha yaraado ama ha weynaado
ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaado cidda koowaad u baahan yahay waa biliis markiiba wuxuu leeyahy biliiski mee laba hadday istilaan iminka halkaas suuqa waxa la odhanayaa biliiski mee halkaa markay taagan tahay opposite-ka kale dhinaca kalena askarigana waxaa isagana laga rabaa dadku markay ogaadaan inuu hantidoodii yahay isaga askarigana waxaa laga rabaa ama sarkaalkana waxaa laga rabaa inuu ogaado inta uu uniformkaa xidhan yahay ee uu dareeskaa sito hantida dadweynaha inuu ka mid yahay inuu ogaado oo dadku leeyihiin iyaga u shaqaynayo labadaa marka laysla fahmo ee dadkuna fahmo inuu askarigan iyagu leeyihiin askariguna fahmo inuu maxay ahayd dadku leeyihiin markaasaa ayaa isfahamka iyo wada shaqayntu timaada iyo amnigu kulankeenana wuxuu daaran yahay sidii aynu xoojin lahayn isku xidhka bulshada iyo booliiska isku xidhka bulshada iyo booliiska sidii aynu xoojin lahayn ee aynu noqon lahayn one team xogta dadku xogtay helayaan booliiskuna xooggiibuu hayaa iskaashigu markuu yimaado baynu labadaa markaynu isla kaashanaba ayaynu guulaysanaynaa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa hooyo halkan ka dhawaajisay 3 arrin oo ay gacanta ku hayaan oo aan cidila haynin kow waa tacadiga caruurta la tuuray iyo khilaafka qoysaska iyo xaafadaha dhexdooda saddexduba amniga lafdhabar u yihiin maaha wax amniga ka baxsan saddexduba waxay lafdhabar u yihiin amniga haddii ilmo yar la tuuro aynu ogaan weyno dee amni ma jiro haddii khilaafka qoyska aynu halkiisa ku qaban weyno dee waa nabadgelyo darro qoyskii ka bilaabantay oo dibadda u soo baxaysa oo ballaaranaysa haddii maxay ahayd tacadiga caruurta ee maxay ahayd hooyadaas sheegtay aynu bilis iyo shicibba gacantiisa ku geyn weyno dee waa fidmo aynugu fidaysa weeyaan oo iyaduna maxay ahayd waa dhibaato weyn intaa iyo in ka badan oo 10 jeer ka badan oo yaqiinsanahay inaynaan rag warohayn oo dumarku hayaan uga mahad celinaynaa waa inaynu ku amaanaynaa wixii aynu kala qaban karnaa waynu kala qabanaynaa haddii la yiraahdo si gaar ah duruufaha u gaarka dumarku way badan yihiin ee aynaan ogeyn dib oo dhan dumarka oga rag waxba ma ogeyn inta badan 90% dumarka og 10 baynu ogaanaa haddaynu ragga nahay arrintaana waxaan leeyahay amnigu waa inoo wada dan ujeeddada maanta aan ka lahaa kulankeenana wuxuu ahay suuraysiga iyo inaan anigu ogaado maadaamaan taliyihii booliiska ahay guddiyada shaqeeye ciidanku siduu u wada shaqeeya meelaha carabka ku dhufateen ee rugaha booliiska oo guddoomiyeyaashii hadlay hadalkoodii u badnaa dhammaantood waxbaan ka qabanaynaa saa ugu dhaqsaa badan taliya qaybeedyaasha iyo taliya saliyada xukuma taliya qaybeedyaashaan kala hadli doonaa iyo iyagaa dabooli doona haddii la yidhaahdo taa waynu dabooleynaa deg deg baynu wuxuu ka qabanaynaa insha allah booliiska markaan la hadlayo waxaan idhahdaa shaqadaynu hayno ee aynu u hayno qaranka jamhuuriyadda somalilan ee booliisku hayo haddaynu niyada gelino inaynu ilaahay agtiisa wax kaga helayno waynu kaga helaynaa ajar weyn baynu ku helaynaa waayo ummaddii oo hurda ayaynu ilaalinaynaa oo loo u taagana hooyada cabanaysa iyo inanta yare cabanaysa iyo inanka cabanaya iyo odayga cabanaya intuba booliiska ku soo eeranayaan oo ay imanayaan waynu u dhagan nuglaanaayo aynu noqonaa maxay ahaydeen danasteexa ayna soo bidayaan mid inaga soo noqonaya markiiba degdega waynu noqdaa waxaynu samayn doonaa insha allah billahi kariim waynu gacanta ku haynaa imika inaynu casriyeyno oynu badino goobo degdeg ah oo booliiska lagala soo xidhiidho dadweynuhu kala soo xidhiidhaan oo guddiyadu kala soo xidhiidhaan oo goob walba yaallo saldhig walba yaalla oo xarunta taliska guudna aynu ka samayno goob ay ku soo wada dhacaan oo cidda ka jawaabi weydo degdeg taliska guud loogala soo hadloo la yidhahdo maxay ahayd cabashada halkaa ka jirta ka jawaab taana insha allah gacantaanu ku haynaa way noo socotaa horraanteedina waynu bilownay oo maxay ahaydeen way noo socotaa waxa kale oo maadaama aynu nabadda ka wada shaqaynayna iyana inoo socdo idinku bishaaraynaya caasimadda hargeysa dhammaan iskooysyada ay leedahay dhammaantood waxaynu ku xidhaynaa kamarad waanaynu bilownay hool weyn oo ka leeg baynu ka samaynay taliska ciidanka booliiska waxaynu ku xidhnay iskriimadii waaweynaaye maxay ahayd tifiyadii dhammaan kamaradihii oo dhanna waa lagu xidhay oo iminka inta suuqa bartankiisa muhiimka dhammaan waynu gelinay iminka
xaafadana waynu wadnaa way socotaa shaqadaas 24 saacadood way shaqaynaysaa saraakiil baa dul fadhido la soconaysa oo goobta waxa ka dhacay record garaynaysa si aan loo waayin arrinta insha Allah waa wax amniga oo inoo soo wada kordhay dhamaanteen nabadgelyadu aad baynu xiriir badan u leenahay laba qodob oo kaliya ayaan ka hadlayaa bileysku inay dabaqaan riboodka gudiyada nabadgelyada hadday weekly tahay iyo hadday monthly tahay iyo hadday 3 bilood tahayba si looga tixraaco degmadaas waxaa ka imanayay bishaa riboodkii ay bishaa keentay shaqada noocaasa ugu dhib badnayd degmada ma mukhaadaraad baa ku badnaa ma dabkaa ku badnaa ma dilkaa ku badnaa ma tuugaa ku badnaa halkaa bileysku ka tixraaco oo loo soo gudbiyo xasan uu u gudbiyo taliya qaybeedaduna ay saldhigyadii sidaa day u gudbiyaan waxaa kaloo dhib nagu haya mootooyin habeenkii saacadaha dambe soconaya mooto saacad dambe socoto kowda habeenimo socotiyo 12 oo uu madaxiibuu ka duubanayaa dabayl baan ka duubtuu koodhaya markaad joojiso jiniya insi wuxuu yaana garan maysid umanaynaan lahayn innagu tababaro fara badan oo mootooyinkaa marka hargeysa laga hadlayo waxaan naqaanaa inagoo dhoorro un ku sheekayno shilinku dhulka ka qaadanidhaan dad shisheeyaabaa badankooda wada biliiskana intaa waan ku wargelinayaa isha soo jeeda ee habeenkii u soo jeeda dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteedaba inay ilaaliso abaalmarinta xagga ilaahay bay hortaliya ka helaysaa waxaanse naftayda iyo nafaha walaalayba u sheegaya ahmiyadda uu noo leeyahay ciidanka booliisku had iyo jeer waxaanu aragnaa dhibaatooyinku way nagu soo horeeyaan marka ay nagu soo horeeyaan dee dadweynaha haddaana hubkii uma sidano iyagu waa biyadii gacan bay ku filan lakin annagu waa carabka ciidankaa loo tagnaa islaamta ilmaheedii ka baqanaysee toorre u haysaba ciidanka u imanaysa askaraa la diraya qaba baa la leeyahy mindidaa adigu qabo oo ku dhac tuug iyo haamaamka habeenkii gudaya masya abeesaba socotaa waxaanu ula tagnaa ee cabsida dadweynaha haddaan aanu ka baqano waa booliis waxaan u sheegnaa horse waxaa tacawl ninkii galay iyo ninkii galadaba uu kala ogayay boolisku kaalinta uu ku jiro waanu garanaynaa inta aan garayna allaha fahansiiye subxaana wa tacaala waa iyagaa lagu hurdaa iyagaa lagu gamaasanyey iyaga ayaa mataqaanaa dhib u taagan dadweynuhu dhaaftii ayuu cunaya ganacsaduhu ma ganacsan karo haddaanu abni ku haysan dalkiisa oonu boolisku ilaalin habarta tamaandhada usoo kala haysa ma socon karto haddii aanu boolis haysan maanta maalintii ugu fiicnayd baynu joognaa sida mataqaanaaye wacyigelinta had iyo jeer jananadu ay usoo siiyaan taliya saldhigayaasha waanu ka dareemayna ana haddaa iska hadla maanta saldhigaygu maalin uu ka fiican yahay axmed dhagax ma jirto ilaahay mahadi weeyaan waxaan u daadegi lahaayo nabadgelyadu waa jaranjaro soo laalaado waa taa nagala hadlaysaan waa ilaa iyo mataqaanaa arrimii gudaha ka soo bilow booliskii ka soo bilow haddana dowladda soo qaybta amnigana ka soo bilow taliya qaybadadii ka soo taliyaha saldhigga ka soo bilow ilamaa iyo gaarhka haddaan isdul taaga qaybta gaarhka waxaa dhacday hargeysa mar laga waayey tuug iyo shandad laysku wado guri jabsado baabuur loo dhaco habeenkii la burburiye daayo waxaa jirtay xilli la waayo wax alaale xaafadaa dhibaato oo ka dhaca markii gaarhka iyo guddida nabadgelyada iyo booliska gacanta haysaysteen kolley warbixin kooban oo fiican way ka bixiyeen guddiyadan odayaasha nimanka hadlayay laakiin annagu dee booliskoo keliya ama amnigoo keliya kama shaqayna annagu waxaanu ka shaqaynaa waxyaabo fara badan waxaanu ka shaqaynaa xalinta khilaafaadka qoysaska qayb baanu ka nahay annagoon booliskaba ugeynin oonu dad badan annagu maxay tole heshiisiino waxaa kaloo aanu ka shaqaynaa jira caruuro la tuuro oo meelaha inta la dhigo ayaga laftigooda aanu soo qaadno taliyaha markaa degmada dee aanu joogno saldhigeedu si fiican isaguna noola shaqeeyo caruuro waxaa jira aanu hayno 7 cisho ama 8 cisho anagu aanu hayno oonu la meeraysano oonu inta anagu mas-uuliyadooda qaadno oo guddidu uun loo keeno imika ilmo yar haddii la helo hadduu gaarku helo bulshada xaafadda hadday hesho markiiba waxaa lasoo kolgareeyaa waa guddiyada amniga weliba hooyooyinka weeyaan markaa anagu waxay bayaa badan baanu ka shaqaynaa tacadiyada caruurta laftigooda waanu ka shaqaynaa malaa looma ogtaan waxay tirahdaan amnigoo kaliya unbay ka shaqeeyaan nabadgelyadii tacadiyada caruurta oo kale hadday tahay waanu ka shaqaynaa dadka danyarta oo laftigooda hadday tahay waanu ka shaqaynaa
booliska degmadeeda ama waxay tale xaafadeeda anag maxamed mooga ahaan ama sagaalka degmo anigoo matalaya afkooda ku hadlaya si qurux badan oo fiican ayaan u wada shaqeynaa wixii hawl ee maxay tale qabiya ah waan ka wada shaqeynaa waxa jirta imka mootada uu ka dhawaatiyay gudoomiyahaasi mootada waxaad arkaysaa waa habeenada ama maalimada markay duhurka too kale way yimaadaan mootooyinka xaafadaha ma laha lambar xataa hadduu kaa cararo waxa laga yaabaa gaariga inaad lambarka sawirka ka gaadhsiisid ood markiiba lambarka sawirka asiroote laakiin mootadani kuma xidhna wax la yidhaahdo lambar qofku markiiba marka alaab yar baa loo mooraba saa loogu dhiibaya isla ilbiriqsigiiba adigoon soo gaadhinba uu dhaqaaqaya gaariga markaad ka shakido kale ama aad tidhahdo wallaahi waxbuu fulinaya da waxa laga yaabaa lambarka inaad sawirato haddaad wax kale ka gaadhsiin kari weydo ood lambarka sawir ka qaadato laakiin mootadii mala tixraac wax tixraacod iyadoo wax tixraacaysid waanad arkaysaa shaki wuu kaa jiraayo dee labada duhurnimo markay tahay ay xilligu magaaladu kala seexato ay had iyo jeer la socoto iyo habeennimada xilligaa la sheegay 12 hadday noqoto horta taana waxaan doonayaa inaan si wanaagsan uga wada shaqeyno oo la wada ogaado bal mootooyinkaas shaqeynaya waxay qabtaan amni iyo bulshada haddaynu nahay guddi nabadgelyada inaynu ka soo wada jeesano taliya waxaan ku yar sheegaya in yaaro ay yar bilif gareeyeen marka halkan fadhiya qolooyinkan gaadhka runtii niman aad iyo aad biliiska ula shaqeeyo shaqo fiican bay haayeen sida biliiska ula shaqeeya taliye inta halkan joogta mid aanan la soo shaqayn oo aanan garanayn tallaabadiisa iyo fartiisa ma jirto waa inta hadda halkan iminka fadhida ee guddida hadday yihiin xataa dumarkaasi mid aanan la soo shaqayn oo aanan taabanayn farteeda ma jiro waxaanu leenahay aanu soo jeedinaynaa macnaha intani waa intii aanu shaqada isla naqaanay dee intii joogtay baa joogta waxa weeyaan mid meel naga marayaa ma jiro mid aan nagu kalsoonayn intaana ma jiro nagu kalsoonayn ma jiro mid aanan meeshu galo iyo siduu shaqeeyo qaabkiisa aanan garanayna ma jiro